musharax madaxweyne cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo qormo dheer ku daabacay xilligan bartiisa Facebook ayaa si adag u weeraray madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo uu sheegay in labadii maalmood ee lasoo dhaafay uu dagaal siyaasadeed iyo mid diblomaasiyadeed kula jiray safiirka midowda Yurub ee Soomaaliya kadib markii kulankii ay wada yeesheen ay u quuri weysay ereyga mudane madaxweyne isagoona yiri dalku wuxuu ku jiraa qalalaasad dastuuri ah mana jiro heshiis siyaasadeed oo looga gudbi karo hubanti la'aanta sharciyadeed iyo kala guurka siyaasadeed ee sii kordhaya halkii uu xil iska saari lahaa sidii loo heli lahaa is-afgarad qaran sharciyad siyaasadeed iyo waddo nabdoon oo looga gudbi karo marxaladan xasaasiga ayuu labadii maalmood ee lasoo dhaafay ninka habeenkii shanaad sharci darrada ugu hoyanaya villa Soomaaliya waxa uu dagaal siyaasadeed iyo mid diblomaasiyadeed kula jiray safiirka midowda Yurub ee Soomaaliya kadib markii tweet ay leedahay ay ku daabacday kulankii ay yeesheen kadib qoraal ay u quuri weysay ereyga mudane madaxweyne waxaa la qoray dacwad diblomaasiyadeed waxaa la daabacay olole iyo sidoo kale cadaadis lagu doonayo in dib loogu soo celiyo ciwaanka madaxweyne ugu dambeynna waxaa loo dabaaldega markii safiiradu qortay president xasan sheekh maxamuud laakiin wuxuusan si dhab ah u fahmin fariinta ku lifaaqan qormadan oo ah in midowda Yurub uu 75 milyan oo pound ku bixiyay taageerada EUSOM halka uu 63 milyan oo pound ku bixiyay gargaar bini'aadanimo iyo gurmad abaaro isla markaasina loo baahan yahay wadaagga culayska iyo mas'uuliyadda si horay loogu sii socdo qof kasta oo fahmaya luqadda diblomaasiyadda wuxuu garan karaa fariinta daahsoon ee ah in Soomaaliya si tartiib ah loogu soo koobayo fayl amni iyo gargaar bini'aadanimo si kale haddii loo dhigo waxaa lagu leeyahay waxaan ilaalinaynaa amniga dalkaaga waxaan ka qayb qaadanaynaa gurmadka dadkaaga laakiin kama muuqato dowladnimo leh kalsooni siyaasadeed sharciyadeed iyo awood ay mas'uuliyad nagula wadaagto tweetka kama muuqato kalsooni dowladeed sharciyad dastuuri ah taageero dowlad dhis maalgashi iyo iskaashi horumarineed oo waara haddii ay jiri lahayd dowlad sharciyad iyo kalsooni leh waxaa laga hadli lahaa dib u dhis hay-adeed kobac dhaqaale maalgashi taageero ku dhisan hannaan dimuqraadiya tan kale haddii uu xasan sheekh maxamuud sharciyadiisa ku kalsoon yahay muxuu uga baahnaa in uu safiirro shisheeye kula dagaalamo ciwaanka brotokoolkiisa wuxuusan garan sharciyadda dhabta ah in laga helo shacabka ee aan laga helin bannaanka iyo safiirada shisheeye qaran doonaya sharaf iyo karaama kuma noolaan karo weligiis gargaar degdeg ah ammaanka UNSOM iyo qaran doonaya sharaf iyo karaama kuma kalsoonaan karo weligiis gargaar degdeg ah ammaanka EUSOM iyo ku tiirsanaanta shisheeye isagoo taa ugu yeeraya sharciyad caalami ah Soomaaliya waxay u baahan tahay nidaam dastuuri ah heshiis siyaasadeed dowladnimo isla xisaabtan iyo kalsoonida shacabkeeda haysata